أو مسوقش يا جيل جوجي سوقه جيل بجوجي جيل ده وباري وسوق السير كتير ما تقول جيل مسوق أرتيري ده السلام عليكم. السلام عليكم. وقوي بلا والله بدنا نسكر جاي فديان. صودا صوص ماشي. إني كاتي من دون تعبان صوص عمركاس. مية حول السبع ما نحضر فضلنا دقدق على واحد سبعة بسم الله الرحمن الرحيم. شيخي عاور ملوى شيخ أو قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي معناته waxa isugu yimid shanta walaalaha balcad oo kala ah aaron balcad hintire balcad birambiri balcad quraan jecel balcad waranle balcad على كل حال شنطاس وحكى هذا ما تقول جيبوده كأدم معمر كشاك كسر على جبويك مايا بسم الله الشركة أي سوي مادين ما أنت ماشان وحاوية كل dad walaalo ah oo aan is aqoonin oo iyagoo la raba inay isbartaan oo barasho isugu yimid sida la sheegayna beelaha baalcad ka kooban ee walaalaha shanta baalcad haddaan taas ka gudbo waxaa jirta jifada ajuuraan oo baalcad ah iyada lama baalcad oo jifo ajuuraan la yiraahdo waxay ka hadlaysaa kismaayo xaaladda ka dhacday iyo dhibaatooyinka yaallo iyo sida ayaan raalli aaga ahayn marka ma aha muhiim in ay baalcado idilka wada hadlaan maadaama baalcad isu yimid hadda qaarna ay degan yihiin shabeellada hoose oo ay shabeellada hoose ka tirsan yihiin arrimo shabeellada hoosena iyaga haddii ay imaato ay ka hadlayaan qolo kalena ay jubbooyinka ay wax ka degan yihiin laakiin jifada hadda toos u abaarayso kismaayo ee diidan waxa lagu sheegay awood qaybsiga beenta ee meesha kismaayo laga sheegay
ayaa meeshan jirta marka waxaan ku bilaabayaa bismillaahir rahmaanir rahiim intaasi waa faahfaahin hadda waxaan bilaabayaa marka aayadaha quraanka bismillaahir rahmaanir rahiim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ولا ليال وحا arrimaha maanta meesha la isugu yimid saxaafadan aan ugu nimid waxa weeye in qaabkii wax loo qaybsaday anda maysa waayahay mabda adag sheegan doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim kismaayo wixii ka soo baxay oo qaabdaradii iyo qaabkii beeshan ajuraan wax loogu qaybiyay guud ahaan inta meesha fadhisa waxaan u malaynayaa inay isku waafaqsan yihiin in ayan qaadan karin oo ay qalad tahay rag badanna way hadli doonaan makrofonkana waa loo dhiibi doonaa ma qaadanayno mana ogolin kow waxaa marka anaga hadda shaki nagaga jira waxa oo aan rabnay inaan halkan ka cadeyno xaaladda Soomaaliya maanta ay ku sugan tahay oo ah kow shalay waxaa baxday diyaarad ay diyaaradaasi waxay qaaday dad Soomaaliyeed oo la rabay inay shirka ka qayb galaan diyaaradii markay degtay garoonka Kismaayo laba diyaaradood miig ah dhinacyaha laga soo galiyay waana la soo celiyay degitaanka waa loo diiday ilaa ay jilib ka soo dhaafto diyaaradaasi jilib ka soo baxdane labadii diyaaradood oo miig ah ee ay dawladda Kenya leedahay ayaa soo galbiyay oo yiri markaan jilib hadaa dhaafto dhul Soomaaliya joogta nabadgelyo laakiin intaas ka dambayso diyaaradahaas miig oo dawladda Kenya ilaashanaysa taasi waxaan marka rabaa kow dalkan shaki waxa igaga jira inuu ay ka jirto dawlad Soomaaliyeed oo mas'uul ka ah dalkan iyo ummadan ayatiinkeeda iyo qaranka waayo waxa dhibaato weyn ay ka taagan tahay isfahankii iyo ummadii Soomaaliyeed isku dhaxyaac weyn baa ka jira maxay isku dhaxyaacsan tahay dawladii hogaaminaysi oo madaxda meeshan ka ahay ayaa wax walbaba ka aamusan way ka aamusan tahay waxay aga aamusan tahay waa garan laana waa inay hadashaa waa inay talaabo qaadaa waa inay dalkan xorriyadda dawladda Soomaaliyeed oo mataqaana integrity-ga Soomaaliya ay xasilisaa waa inay xaqiijisaa waa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadla ummadda Soomaaliya oo uu u sheego xaaladda ay maanta Soomaaliya marayso waayo laba diyaaradood oo miig oo diyaarad Soomaaliya yar inta ka baxdo Kismaayo socotay lagu soo galbiyay loona diiday inay degto maaha arrin sahal waa arrin qaranka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan taabanayso waa arrin nin kasta oo Soomaaliya taabanayso taas waa tan aan islaayahay dawladda waa arrintaas inay ka hadasho tan labaad waxaan aad iyo aad uga xumahay oo meeshan dalkan waxa dhibaatada taala waxay tahay wasiirada dhisan dawladda way dhisan tahay wasiiradii badankooda xafiisyada loo amray la siiyay oo loo dhiibo la yiri ku shaqeeya inta ku shaqeynaysa waa iyadana waxaan isleeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hawshii aad ladin idmaday halkaasi way ku xuntahay dhibaato weyn baan ka taagan waa inaad fiiro gaar ah u yeelataan oo arrintaasina dhex gashaan tan kale waxaa beesha ajuraan lagu siiyey Kismaayo 15 xibnood 15 xibnood aad sheegaysaa konton xibnoodna ku qanci mayno konton ku qanci mayno sababtan ana idin sheegaya jubbada dhexe waxay leedahay 166 ergo
jubbada hoosena waxay leedahay 166 ergo geedana waxay leedahay 166 ergo saddex gobol oo israacayso oo lagu talagalay inay israacaan ayaa meeshaas yaala gobol walba waa inuu helaa qaybtiisii hadduu waayo oo gobolkaasi marka waxaa dhacday gado waxaa la siiyey qaybteeda 166 lagama taabanin waxaa la yidhi marka jubbada hoose iyo jubbada dhexe la isku jamcinayaa oo waa niman baa inta meel fariistay hal beel ka kooban hal beel oo Soomaaliyeed ka kooban ayaa waxay yiraahdeen reer hebel intaasaan siinay reer hebel intaasaan siinay reer hebel intaasaan siinay war ma qabiil ba qabiil wuxuu qaybiyaa war soo lagama soo gudbino qabiil wuxuu qaybinaya xagee lagu arkay waxaana qalad oo aan u sheegaya inay taasi ahayn mid aan beesha ajuuran ay qaadanayso mana ogolaan doonto dadka joogo oo ajuuraanka sheeganayo oo ku jira shirkane nama mathalan waxayeen ma naqaano waxaan u dhiibanay male waxaan u dirsanay male waxaan leenahay meesha ka baxa ma fadhin kartaan shirkaasi ajuuraanna ma ogola waana diidan yahay taasi waxaan leeyahay shirka xagga ah beesha ajuuraan qusayso wax yar baan rabaa inaan idin sheego walaalayaal aniga maadaama aan siyaasi ahay maalin dhaweed waxaan la kulmay ninka safiirka Mareykanka hadalladana rabaa marka idin taabsiin bal hadallada ka soo baxay halkaasi bal u fiirsada koow safiirka waxaan weydiiyay dawladda Soomaaliya waxay wadataa oo ay wadaa howlgal lagu safeynayo al-shabaab dalka laga safeynayo howlgalkiina waa istaagay dawladda Mareykanka maxay ka qabtaa arintaasi maxay si istaajiyay howlgalkii dawladda Soomaaliya wuxuu igu jawaabaa idin sheegay wuxuu yiri amisom ma soconayso mana tagayso xaggaas ma aadayso waa koow dawladda Soomaaliya ciidan qaran ma haysato oo ciidan ma laha waa labo maleeshiyada ay haysatana waa maleeshiya qabiileed waa saddex waxayna u badan yihiin abgaal iyo habargibir يعني وسفيركي مريكان قال لك ربيين وارد وحي وبدين هبرجدر اي ابقى وارن لا يابله معناها وحاول عيدن كامسو انغا لعكسينا mana dhaqaaqi karaan meelna ma aadi karaan idinkana awood aad kismaayo ku tagtaan meel idin mana dhaqaaqi kartaan taas waa taas waxaan ka xumahay marka dawladda Soomaaliyeed oo waxa soo idinka warqabto oo arrimaha siyaasadda dibadda oo dhuundheer oo wax walba loo in ay qaladaad waxa soo kale inta ay ka hadli weyso waxaan marka xusuusinaya oo aan rabaa inaan u sheego dawladda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed yaa dayicin qaranka Soomaaliyeed waa la duminayaa waxa loogu soo dabagabanaya qabiilada Soomaaliyeed taasina waa qalad waxaan ku baraarujinayaa qabaa'ilada Soomaaliyeed ee iyagu ka horjeedo qaran Soomaaliyeed inuu dhismo dawlad Soomaaliyeedna la helo inay waxyaabaha noocaas oo kale iska daayaan dawladda ay yidanay dawladda gacan siiyaan tan dambe waxa weeye waxaa la yiri meesha la leeyahay gado waa la sii xisaabteedii beelaha gadadago waxaan uga baaqaynaa marwo waxaad ogashiin oo aad aqbalaysaan in jubbada dhexe lagu maquuniyo magac qabiil miyaa lagu maquuniyo oo idinkana aad raalli ka tihiin oo 166 kiina waa lidin siiyay idinka kismaayina 7 kursi baa lidin ka siiyay ma taasaad ku raalli garoobaysaan mase saddex gobol oo siman oo xuquuqdooda siman tahay oo Soomaaliyeed yaa la israacinaya oo la rabaa inay mid noqdaan oo ay state ku soo baxaan oo dad walaale oo danahooda iyo ka shaqeynaya Soomaalinimada miyaa la rabaa mase idinka haddaad xoogaageena gooni u hesheen waad ka baxaysaan wax aad muraadka leedihiin male waxaan idinka waanayaa idinka qolada reegado arintaasi waa inaad diidaan waa inaadan ogolaanin in gobol dhan qabiil lagu maquuniyo qabiil gobol in lagu maquuniyo ma ogolin waan diidaynaa waxaan leenahay haddii ay wax hadda kismaayo ka socdo ay dawladda joojin weyso
oo ayba tabarba u waysabo dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka deegaanka iska leh oo jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gadaba dego inay gacan siiso al-shabaabka haystana si ay iskaga saaraan nimankaasi cadaalad darrada ay wadaan ay iskaga celiyaan annaga warka iyaga ma raba inaan ku dhammaado halkaasaan rabaa inaan aniga cabdifatax ahaan aaga baxo waxaan u dhiibayaa aan hadda rabaa ku wareejinayaa cabdi soo dhawow xiriiryahan rabaa u dhiibaya xiriiryaha caawe بعد السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا ليال ضد إسلام أيام نهي مركا خلدنا وحلو بهينا كبل من آيات القرآن آيات الله سبحانه وتعالى ونقول بورنا يا الله كعبسي اتقوا الله بنادموا إلى إلهي كعبستان حق تقاته عبسينا بدأ هو حق نبض إلى إلهي كعبستان ولا تموتن على من إلا وأنتم مسلمون إذنكم إسلام هنا أدنى نبينا عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وغالط الناس بخلق حسن نبي وحوري ذاتك اتق الله إلهي كبغ بن آدم ذاته حيثما كنت مال الأجوبتان أما كل جوب أما قولي جوب أما دور جوب مال أجوبته وإله كعبشته وأتبع السيئة الحسنة هدي أي حمان عدنا وناقر إلهي تمحوها أي آيات ليس وقال الناس ذاتكنا خلاف بخلق حسن هذا هو الأكسن سوى كل النبي سوى أباء لدر دار عن جابر يا جابر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل جابر أدري كوه مرتي كوه قف مرتاح أهو أدري كوري أما أو عابر أمانين وده كوري أهو ما أنت هذا سومانا نهاي وحنكون مشغولين الدنيا حنكون مشغولين الدنيا أما عامل الإسلام هذا مركو حلو باهي الدنيا أنت أدوي سواء ير نبي يقول أمتي اللهم صل وسلم عمر غيره وأعمار أمتي ما بين 60 و 70 ولحدا سنة أما تدوات سنة تدوات سنة كده واحد تعمل واحد أتتعلم عمر نلاش أنا محاوى ما بين 60 أو 70 ولحدا سنة هي تدوات سنة أنت أيامك الدنيا إن أوجاتي واحد دون قال هو كيني حكمة هو كيني محيطة يا عيال هو كيني وحلو كين التعبد إلى إله كعب سطاء يا هو كين مركو حان ربع شركان بيراها شنطة بالعد أهكي وجهري يعني سوون مع النه وحلو بينطا إلى هذا شركة أو هذا سر إسبرشة سر إسبرشة إنه هذا قد وقالوا إيه لو كلام مكان أو همون سوق بيننا نقنه markaan isbaranno oo aan meel ka jeesano ayaan u jeesan karnaa siyaasad iyo barnaamijka loo jeesan karaa aniga waxaan kamid ahaa raggii barnaamijkan guddiga kamid ayaan ahaa hadda waxaa moodaa barnaamijkii dhanba awoodina inaan la aadnay kismaayo war kismaayo xaggaan oo jirto horta annaga waxaan naqano horta annaga siraad fariiso diiradda waa inaan saarnaa saddaas beelood siday ku midoobi lahaayeen siday dad ku noqon lahaayeen arrin kismaayo waa dambaysaa kismaayo barnaamijkeeda dad baa meesha jira maanta dad haddaad mucaarado adna ogow in lagu mucaaradayo midda kale arrinta kismaayo dowladda ayaa ka hadashay warkeeda meelu naga yaalla annaga dhaqanaan naha dhaqan meesha aan rabo muhiimadda diiradda inaan saaro aan rabo inta fadhisana ay rabaan inay ka hadlaan waa duco odayga baalacadda loo duceeyo firkii baalacaddaan nahay diiradda inaan meesha saarno
إذا برنامج قدام ناكل لا قفك وورينا برنامج كان مدة سوبني وافتتاح شنطة بالعد يسوم هذان وأي كود عستان وأي كود ذبان نقص ماله كيمي مد توبو كيمي مد كيو كيمي مد جذو كيمي اسماء في قانان اسمه دقن ما اسمه لغة ما أنت أصلا واسير المركز فجر الله وماله سوى الجسم شركة وأردع شركة وأردع وبلوة مدة إلى كشغيني هيركا مانتا أقوم يكرتي عقل ضد يا سوق أنت اللي منو حاربنا إن جماعة نلقطه أو أن كاميرا إنه في رأي كاسية شركة واشتري ركوبا لكن شو وين اللي بلسيه وأنا ربنا هذه إلهي وبرانه شن يتوقع أغس كلا أنا لا من شن يتوقع أغس إنه ضل كتاب سومه تاسوانو دولة منه وهاي كمان وبجوكا إيه نقال بين شركة سير سوق مالي إلى شن بقول إرجو يا رأينا عزمه شركة واشتري سكبيرو مركوات يعني وحنا قبعها دور وديرة أنصارنا وجدنا كلهم ودعوا بعد دعوة سنة ودعوا بعد دعوة سنة وبدنا ويوم شركة على كل شركة آخر السنة هذا الموارد آخر السنة أنا قلت لي هذا لو بناء يعمل إذا واحد قاعد شنو مية مركز واحد معارض فرط أدي واحد نقو أنا مركز واحد معارض ما قلنا ارتوينا واحد نقدر مركز شنطة بعد عد أي مدة عد أي لا والدين الدعاء لا مركز عد كذا واشقين كذا برنامج اسماعيل وحكي أنا قايله ولا حوجة يعني سالم مهمتنا أن سكون مد أنا حالي أكون سحري وأبقي بالعد فركي صدقنا يسال ودعوا سلين ومذوبين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت شنطة بالعد نقطة إلهي لو كمل اليوم وأي نقطة تي لو عايو باش أجوران هاي كمل تاي شنطة بالعد مركز arrimahaasi oo aad iyo aad hadda la isu soo xilqaamiyo maanta wax laga qabanayo adduunyada marba waxbaa bilowday hadda la isu raadinayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tan kale xaalii horta waxaan ka mid ahaa dadkii Soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada Kismaayo ku dhashay gudoomiye urur dhalinyaro gobolka ka ahaa فهميسا قدومي ورقل يرقبل نلاش ماشي لقى بالله واجي مجلس كعاكي محمد سياد بدكوا حكومة هاد دقمو هير قبل تاسوس أنا أيام ثم موليتورة أنا كدسين بدي أور دليرو أنا كدسين حكومة كسمايو كيو قبل كجبال هوس جودهان مركا عادي عاد بنقول رحسنا هرت إني استان مامول إني استان تكاس عادي عاد بنقول تاجرسنا بلسه مامول كانوا نقولين مد دتك اللوجو تلمو دتك ماشي ديجان كاس دقن ريكو ده كيف قالوا غوضة ده هيك هلان عاد بنقول رحسنا إن الهيل بلسه واحد علي إنه ماشي أي نقطة مال دم والبر وحد ليه أنا عليه سوى البحر عليه ما دنا تاسي سومالي ولا يدي قضايا هدي عدالة لو دسيو عدالة هدي لو دسيو سومالي ولا بيدي قضايا إنه عدالة وحلو قيب صلاة وواقف يعني على شيء هذا جبل هوسان كلها أنا كورنا جبل ده قبل لا نسيلو كلا دقيقة هي وانا قانا هو هذا waxaan ka noqday markii hadda ugu dambeysay burburka dawladda Maxamed Siyaad ay burburisay waxaan ka ahaa chiefka oo magaciisa qabiilka ajuuraan ku fadhiyo jubbada hoose magna bixiyo magna qaabto ayaan ka mid ahaa anyhow si kastaba ha ahaato haddii saas ayadoo ay tahay haddana nin walba xaqiisu helayo aad baan ugu faraxsanahay إن وحسابيستان هذا معني عن كقيم قلي حتى أنا محاني وجوه ماشي ما تعلو هدي ورانه ماشي جوه أي
حقه هلا يا وحبك بقبل بس صور كوريد لما قات صور كوريد لما قات جبهة هوسي جوراك وحبوك الدجاج جبهة دحى السجابة وهو مدوبي وحي من العن كسوجرة السجابة وهو مدوبي تيجان هالو الدجاج مركا حتى هدلي ستحي طوام شري طوانيو قال لي شاب قلوب أرجع أرجو شري طوانيو ستحي طوانيو مركا ورسقنا بالسيالي مركا باشا وحاول وغنيديا أرنتاسي وحليري وحا مقعيسي وحوها dadku inuu midoobo nabad lagama maarmo labadaasba lagama maarmo dadku inuu midoobo iyo nabadaba lagama maarmo haddii la waayo marka la murmo muruq timaado la waayo waranku waa macay waranku waa macay